ولا لما قاعد أكو بلاوية سؤال دور سؤالات برهوانا كويديو هذا ما قاعد أكو بلاوية سؤال شو جوهر سوى حويان هوية مركب برها بالشدة للشوجو مركب برها بالشدة للشوجو هوية ساق محيس كي حسان دارس كي حسان أو يستح حلفيستان مقعد وسعيد محمود عليه هوية دارو حيس حلفيستان horta waxa weey gaashaan bureys in ciyaal doorasho ku sameeyay markay tartamay isaga ninka la dhaho Cabdishar Ali Sharbaarki ayaa wuxuu sameeyay waxa la dhahay irir Soomaali oo gaashaan bureysiya irir Soomaalihi ayuu wuxuu kaga dhigay markay doorashada heleen ra'iisul wasaare waa sababtii ficilka daarood kaga dambeeyay ra'iisul lagu dilay madaxweynihii soo aad garatay ma marka hadduu Ilaahay ku sameeyo gooleysta darteed ay horta isaga jeceliyeen oo marka hore ay isu xulfaystaan oo marka labaad su'aasha labaad maxaa tiri سؤال لو هذا سؤال لو أنا كقدبنا مركز سياسة يا الدولة مركز لقى هذا يا إساق يدني يقولشرتا يا إساق يدني يقولشرتا هوية يوم دارود يا إساق يدني يقولشرتا مركز حب دولة سيستم دولة مركز سياسة لقى هذا يوم سيستم دولة اللي بدو مركز لقى هذا يوم ده واحد يقولشرتا هدول هذا كل سنة يقول إنك سياسة فعلا كسوكين راعي أو إسكي حسدان هاي إسكي سياسة يا الدولة مركز لقى هذا حسكي حسدان هو حسكي حسدان وهالكا فعلك كسو بلامي iyo markii dambe ee jabada lahaa channel ID heshiiskii la galay awood jabintii sida darteed baa la isaga xigsa markii dambe aynu gobolada ay la kala qabsadayna ay Soomaaliland ku dhawaaqday iyagu wax qashqashaado dambe inoo ma geenino goon istaageena wayna ogolaayeen de anaguna waxaan leenahay hambaliyaan idin leenahay iyaga qudhooda maanta hadii xilku ku guuleysteen su'aasha taxaan ku weydiinay waxa weeyaan hawiye daarood yaa fiican yaana naxariis badan yaanay danta isaaq dan ugu jirta marka dawlad hadalkeed laga tago la ilaahay ma soo dhaweeyay daarood fiican balad waa dad aad wax istaraysan isku dhex jiraysan ka dabkaygu isma gaaro way durugsanayeen marka kuwan aanu dhalay ee aanu garanay hebel iyo hebel la ilaahay ayaa anagu noogu xidhantay waan gartay su'aasha afraad aan ku weydiinay waxa weeyaan yaa jeclaan lahayd hawiye iyo daarood inay kula degaan markay taasay nimankan ka tuurayaan aniga ay keeniyay booyinka daaroodka aad iyo aad baa saaxiib adoo magaca ku bilaawaya su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinay waxa weeyaan adoo magaca ku bilaawaya marka baraha bulshada la joogo hawiye isaaq maxay iska xisaan daarood iska xisaan ay isku xulufaystaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Fattaax Jaamac joogo magaalada Barca waxa weeyday wadir ya daarood waa dir bay isku xigtiistaan dirood isku meel waa xulufoon lidad Soomaalida kala iska waa xulufoon marka dadku dir ya daarood waxa la sameeyay dir ya daarood ilaa sidaad dawladda hore isticmaalkan ba daarood ay waddanka xukumi jiray marka dir waa loo shiraako daarood baa loo shiraako okay marka siyaasadda su'aashii labaad weeyaan marka siyaasadda iyo dawladda marka laga hadlayo maxay iskaga xigsan isaaq iyo hawiye maxay iskaga xigsan daarood maxay iskaga xigsan waxay iskaga xigsan waa xulufoon laakiin siyara faa'iido xulufooda waa dad isku darsadeen wax shuraakawn waa iska xulufoon su'aasha saddexaad aan rabaa inaan ku weydiiyo mar hawiye iyo daarood keebaa fiican keebaa naxariis badan oo danta isaaq dan ugu jirta daaroodka dhow daaroodka isaaq u dhambeeyay oo naat weyn soo gaarnaa daaroodka dhow aniga gan daarood ay dhalay daarood umad daarood isaaq badankiisa dhalay inta bariga xakam xigtay marka aad baan ku salaamay saaxib okay su'aasha afraad aan ku weydiinay waxay adigu waxa tahay daarood baad Soomaa daarood okay marka aad iyo aad saaxiib ugu maasan aad baan ku salaamay ku weydiiyo adoo magaca ku bilaawaya marka baraha bulshada lagu jiro hawiye isaaq maxay iskaga soo xigsan daarood maxay iskaga soo xigsan maxay isku xulufaystaan bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Maxamed Cali Sugaal baa la dhahaa waxay isku xigsadaan labada reer waxay isku xigsadaan waxa jiray dawlad Soomaaliya oo dhacday baa jirtay dawladii Soomaaliya dhacday Maxamed Siyaad Barre oo ahaa uu madaxda ka ahaa ayay ku kaceen labada qoloba midna wuxuu aslan buuha midna SSDF iyo waxba la oran jiray magaca aad ma karee adiga isagana iyaguna jabhad bay bilaabeen marka labadooda qoloba dawladii way wada rideen magacana waa la isku dhahaa oo meel bay magac ka wada yihiin oo qolana meel bay islaam baa wada dhashay baa la yiraahdaa labadaas yaabad horta labadaas isku xigsadaan ma anigu oran karaa ra'yigayga waan gartay marka siyaasadda iyo marka dawladda laga hadlo yaa oran kar maxay iskaga soo xigsadaan isaaq iyo hawiye maxay iskaga soo xigsadaan daarood maxay iskaga soo xigsadaan marka siyaasadda iyo dawladda marka laga hadlo
dawladda iyo almacno su'aashan waxaan filayaa inay isku mid u tahay su'aashan ku sheegay waxaa isku mid kiira mid yala waxaad marka dawladda iyo siyaasadda marka laga hadlayo dawladda iyo siyaasaddu waxaa la iskaga xigsadaa dee kolley anugu ra'yi aan odhan karo iminka saa waxaas isku xigsadaan ma garanayo kaleba intaasu inay soo wada dagaalameen labadaba jabhad soo mareenuun waan gartay intaasu bay isku xigsanayaan hawiye iyo daarood yaa odhan kartaa way fiican yihiin oo ma garanaysa danta isaaq dan baa ku jirta anigu horta waxaan odhan karaa hawiye isaaq mar haddii marka aad beelay yacniga reeraysay dhulbaantana waa isdhalladay oo halkanaan wada naallaa oo isdhallo annaga hebanna dhaleen ma odhan karo ma caayi karo ma aflagaadayn karo ceebna igama mudna labada qoloba waxay dan ugu jirtaa uun dantooda waxay ku jirtaa isfahanuun inay labada qoloba qoladii ilaahay ku soo xejiyaa waa qoladii kale dantooduna waxay ku jirtaa inay labada qolobana dadku ay nabadgelyada islaaxooda oo laga shaqeeyo waan gartay su'aasha ugu dambaysaan ku weydiinay waxa weeyaan aduu isaaq baqti Soomaaliya anigu isaaq baanahay haa yaa jeclaanay hawiye iyo daarood inay mataqaanaa meel wada degtaan oo meel wax ku cuntaan oo meel anigu kolley daaroodka jeclaan waa iyagaanu safnaqaana marka aad iyo aad ba saaxiib